magaalada Buuhoodle waxaa maalintii labaad ka soconaya mudaharaad ballaaran oo lagaga soo horjeedo maamulka Somaliland iyo imaanshaha wasiirka caafimaadka Somaliland uu ku yimid magaaladani Buuhoodle. dhinaca kale Professor Cali Khaliif Galeyd iyo xubno ka tirsan maamulka Khaatumo oo uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Khaatumo Yaasiin Axmed Suluw ayaa saaka la ku soo maray goobo badan oo ka mid ah suuqyada magaalada Buuhoodle sida sariibada hilibka ee ay dhawaan dhiseen golaha deegaanka Buuhoodle iyo suuqa bacadlaha. waxayna markii dambe xildhibaan Cali Khaliif Galeyd iyo mas'uuliyiinta kale ku soo mareen wadada weyn ee dhex marta suuqa magaalada iyadoona hareeraha ay ka socdeen shacab weyne aad u tiro badan. isla suuqa ayaa waxay kula hadleen mudaharaadayaal aad u tiro badan oo shucuurtoodu aad u kacsanayd. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولادا إذنكنا نولادا إن شاء الله هلقن كينو هي قضية دينو بوا حق هلقن كينو هي قضية دينو بوا صح دينتا إسلام كا نفريسة دينتا قالدا نفريسة تيهودا نفريسة ابن آذن نمده ودن با ميل وسو ودا جيدا قضية دين قضية دين عدي كهدا بسكا كهدا إياكا عرك روبكوك ماشي آديان بها آدين Somaliland هدعدو Somaliland هدعدو Somaliland هدعدو دابديلفكو هدعو دابديلفكو هدعو شعب مقالة تنبوهد مقالة بوهد لشعب كده قيسينتا قيسينتا هالقمة يا هنولادي غير بوهد لهنولادي عاديات بعد ما سنتين حاول وناكسن شغل وناكسن قول بينو قاعد دونا قول بينو قاعد دونا إن شاء الله dalkeena inuu dhisan doona nabad baan ku noolaan doona caruurteena mustaqbal u sameeyna insha Allah saahayno hata hawshan wada isku soo wada duubo tan iyo maalintii uu soo gaaray Salmaan Xagla Toosiye magaalada Buuhoodle ayaa waxaa soo badanaya mudaharaadada lagaga soo horjeedo maamulka Somaliland iyo imaanshaha Xagla Toosiye. Cabdi Casiis Aadan Jaamac TV-ga caalamiga ee Somsad Buuhoodle.